wardegdega saaxiibayaal madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa go'aan ku gaaray in hubka dhigis uu ku sameeyo xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ee Soomaaliya xilli amar xoogan uu dhawaan ka soo baxay qaar kamid ah xubnaha markaasi ka agdhow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib kulan xalay habeennimadii xalay ka qabsoomay Villa Soomaaliyana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku qaatay go'aan degdeg ah oo wax looga qabanayo mucaaradka hubaysan xilli dowladda Soomaaliya ay xoray hubka waaweyn caasimada uga mamnuucday waxa hadda gabi ahaanba Villa Soomaaliya ay qorsheynaysaa in ay caasimada ka mamnuucdo dhammaan nooc walba oo kamid ah hubka ay isticmaalaan ragga siyaasiyiinta mucaaradka Soomaaliya bayaan ka soo baxay Villa Soomaaliya ayaanu ku ogaanay in lagu doonayo in gabi ahaanba hubka looga mamnuuco magaalada caasimada Muqdisho xitaa midka AK47 loogu yeero go'aankan ayaana loo arkaa mid Villa Soomaaliya ay ku meel marinayso damaceeda la xiriira doorashooyinka qof iyo cod oo hadda muran xoogan oo hareeyay isla markaana waxa fashil ku soo dhamaaday dhammaan kulamadii u dhaxeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo mucaaradka Soomaaliya sidaan ogaanay go'aankan waxa durbaba ka qaylinaya qaar kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka Soomaaliya si gaarana madaxweynaha dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale garabkiisa golaha mustaqbalka Soomaaliya oo arko mid lagu dagaalamayo jiritaanka mucaaradka Soomaaliya si walba yaataba xaalado culus ayaa soo kordhay waxayna Villa Soomaaliya hadda qaadanaysaa go'aankii ugu dambeeyay oo meesha looga saarayo in Muqdisho lagu dhaxwato nooc walba oo hubka kamid ah ila xogogaalaha oo aan la xiriirnay sidoo kale waxa ay xaqiijinayaan in talaabadan ay Villa Soomaaliya qaadatay kadib markii mucaaradka Soomaaliya ay bilaabeen kacdoono looga soo horjeedo madaxda sare ee dowladda si gaarna madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kulamadii ugu dambeeyay ee fashilmay ayaana Villa Soomaaliya waxay ku sii karkariyeen damceeda la xiriira inay qaadato go'aan walba ee mucaaradka kula dagaalami karto si walba haatee xaalada siyaasadeed oo isdiidanaya laga dareemayaa Soomaaliya si gaarana caasimada Muqdisho Villa Soomaaliya hadda waxa ay guluf xoogan ugu jirtaa sidii mar kale ay xukunka ugu soo laaban lahaayeen madaxda Villa Soomaaliya haatan hogaaminaya ee garabka JSB madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horboodaya horena waxay caasimada uga mamnuuceen hubkii waaweyn iyadoo hadda mar kale ay qaadayso talaabo kale oo lagu mamnuucayo nooc walba oo kamid ah hubka yaryar ee AK47 iyo nooc walba oo kamid ah inkastoo khatarihi amni ee kooxaha argagixiso ay hoos u dhaceen haddana lama go'aankan sida madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisu ay hirgal uga dhigi karaan maadaama Soomaaliya wali amaankeedu uusan ahayn mid 100% ah in siyaasiyiinta mucaaradka laga reebo hubka yaryar ee bastooladaha iyo AK47 iyo magaalada ku maraan sidoo kale waxa loo arkaa mid madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hirgelinteedu ay ku cuslaan doonto si walba yaataba go'aankan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu qaatay waxaana la filayaa dadka qaar oo xog ogaala ay durbaba noo soo dusinayaan isla markaana warbaahinta siyaasadda la wadaageen in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu wax walba hirgal ka dhigi karo socodsiina karo sidii uu socodsiyo kale hubabkii waaweynaa doorashooyinka qof iyo cod iyo sidoo kale wax walba uu horay u go'aansadana meelmaray u noqdeen lama oga intan ay sidii oo kale u meelmari karto laakiin dadka qaar oo durbaba aan la xiriirin natiijo wanaagsan ay filanayaan lama soo oga sida wax noqon doonaan waqtiga iyo waayaha ayaa wacaal iyo warsheegid noogu filan walbana waxay kala cadanayaan maamaha soo aadan muuqaalkan fogay oo gaarsiiya saaxiibadiina